sida aan ku ballanay waxaa la ballansanaa inaan qabanno banaanbax dastuuri ah oo ay ka wada shaqeeyaan midowga murashaxiinta iyo xukuumadda oo maalmahan wada hadal uu socday sida aad og tihiin banaanbixii nabadda ku dhici lahaa waxaa mar kale carqaladeeyey xukuumadda xilgaarsiinta ah hadda jirta oo ugu horeeyo madaxweynaha xilkiisu dhamaaday oo aad og tihiin in ballantii ay ka baxeen meel walbana ay ciidamo soo dhigeen si ay u carqaladeeyaan amniga dhibaatana ugu geystaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo raba inay codkooda ku muujiyaan sida ay tahay dalkan in loo gaarsiiyo doorasho la isla ogol yahay sidaas daraadeed midowga murashaxiintu waxay galabta go'aan ku gaareen maadaama ay carqaladeeyeen banaanbixii in banaanbaxa dib aan u dhigno annagoo u turayna nafta shacabka banaanbuxu waa xuquuq dastuuri ah meelaan lagu banaanbixi karinna dowladnimo laguma fulin karo soo iskuma raacsanin sidaas daraadeed ayaa la idiin soo sheegi doonaa waqtiga goobta iyo qaabka xorriyad la'aanta hadda jirta oo la is hor taagayo in xuquuqdii dastuurka la is hor taago waa waxaan la yeeli karin haddii hadda la yeelana 30 sano soo socda ay ummadda Soomaaliyeed dhibaateynaysaa ma yeelaysaan taas maadaama aan taas yeelayn marka idinkana waa idinkaga mahad celinayaa dulqaadka waqti quman ayaa la idiin soo sheegayaa الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد مرشحين حلك مدحوينها بحث الصحافة ومدى الصوماليين ميلا جوكتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة وناكسن الشركة جرائد وحكو سابسين هاي مظاهرات كي أي قرشة سنة برهتين وضعه ويكون باقين مدوغة مرشحين إذا لسعوتين بريها وحا سدعي وذا هذا كل حي دولة إيو مدوغة مرشحين rajo weyn waxaan ka qabnaa in wax la isku soo dhaweeyo oo la gaaro go'aano keeni kara in doorasho la wada aado laakiin nasiib darro xalay waa lagu guul daraystay annaga waxaan isu qaban qaabinaynay mudaharaadkii Brito laakiin sida dad badanba oo halkan jooga ama dad badan oo magaalada jooga ay arkeen goobihii loogu talagalay mudaharaadka kulligood waxa la geeyay ciidamo taasoo ka baxsanad ballantii iyo heshiiskii hore loo galay taas marka waxay muujinaysaa doodda murashaxiinta oo ah arrinta amniga iyo arrinta ciidamada maadaama madaxweynuhu xilkiisu oo dhamaaday haddana loo adeegsanayo hab khaldan in ay noqoto issue go'aan laga gaaro sababtuna waxa waaye dalkan ciidanka oo siyaasad gala hore u dumiyey haddana waxaa noo muuqata meesha inuu ku socdo weliba iyadoo dalkii aan gacanta lagu haynin oo siyaasiyan u qaybsan yahay abni ahaan intiisa badan ay shabaab haystaan magaalada muqdisho ay canshuur ka qaadayaan in xurriyaadka ciidanka lagu qaado arrin aad iyo aad u xun sidaas darteed madasha murashaxiintu waxay go'aansadeen in dib loo dhigo mudaharaadkii lagana shaqeeyo xilli ay soo goynayaan murashaxiintu amnigana ayagu ay sugayaan marka mudaharaadkii qorshaysnaay biri dibaa loo dhigay dadka abaabulayaasha taageerayaasha shacabka Soomaaliyeed dhammaantood waxaan uga mahad celinaynaa dadaalka iyo runtii dhabar adayga ay u qaadeen arrintaanu ma aha arrin khusaysa murashaxiinta kaliya arrin khusaysa taageerayaal arrin khusaysa kaliya maxaan ku yiraahdaa dadka abaabulayaasha waa arrin dadka Soomaaliyeed masiirkooda khusaysa maxaa yeelay shacabka Soomaaliyeed inay awood u leeyihiin inay soo banaan baxaan oo ra'yigooda cabiraan waa arrin dastuuri ah waa arrin qayb weyn ka ah dhismaha dawladnimada iyo processka dawladnimada habka nidaamka dimuqraadiga marka arrin laga tanaasuli kara ma aha waa arrin aad iyo aad muhiim u ah laakiin waa nasiib darro runtii madaxda dawladda oo xilkeedu dhamaaday inay ciidanka ku awoodiisa ku takrifalaan oo u adeegsadaan inay ku caburiyaan xurriyaadka ku qaadaan runtii arrin aad iyo aad looga xumaado waaye sidaas darteed mar kale waxaan leenahay waa mahadsantihiin dadkii abaabulayaasha ahaa dadkii ka shaqeynayay maxaan ku yiraahdaa taageerayaasha aad iyo aad u mahadsantihiin arrinta laga shaqeynayo waa arrin
dhammaan masiirkeenna iyo masiirka carruurteena khusaysa maxaa yeelay haddii xurriyad la waayo macnaheeda dowladnimo ma jirta waaye dowladnimada dhibaatadeeda hadda taalana in cidda haysa ay ku takrifasho waaye wana tan aan kasoo wada horjeedno aad iyo aad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annagu sidaad ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto la socotaba baryahan oo dhan waxaan wada xaajood kula jirnay dowladda waxaan kala hadlaynay qadiyaad badan oo ay ka mid aheeday qadiyadda bannaanbaxa waa ogtihiin heshiisaan ku gaarnay bannaanbaxa midowga murashaxiintu inuu qabanqaabiyo dowladduna doorkeeda dastuuriga oo waajibka lagu leeyahay xukuumaddana ay qaadato oo ah in ay amniga sugto bannaanbaxayaasha amnigooda inay sugto waa ku heshiinay waa ku ballannay meeshiaan ku ballannay waxaasoo dhan dood dheer oo waxay soo martay maalin walba meel laga doodaayo wax laga doodaayo meeshay diideen meel oo lagu xiroonayo isbartiibe waxbay sheegeen duruufaha jira covid-ka awgood dadka in meel lagu xireeyo annagana waa nala khaldantay meel bannaan oo open air oo dadku ay kala durgi karaan inaan geynaan go-aanka waa ku adkaysana way aqbaleen waa ku heshiinay daljirka daahsoon in bannaanbaxa lagu dhigo sidaas ayadoo ay taagan tahay oo ciida amnigii annaga aan saas ugu wareejinay annagana qabanqaabadeenna caadiga aan ku jirno maanta waa ka warqabtaan daljirka waa xiran yahay ma aha daljirka keliya magaaladoo dhan maa xiran number 4 oo hadda intaan noo jirta ka bilaaw ilaa maxaan ku yiraahdo waxaad geysaa magaalada waqooyiga muqdisho meesha ugu dambaysa magaalada waa xiran tahay ciidana lagu daadiyay wadooyinka la xiray daljirka ciidan badana la dhoobe xiraaba laga dhigay ciidana daljirkii bannaanbaxa lagu qabanqaabina laga dhigay marka dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno dawlad meeshan dadka jooga xaaladooda waa sidaas dawladnimayna dhowreyn dastuurayna dhowreyn qawaaniin kalena dhowreyn ballama iyo heshiis lala galaysan dhowreyn mar walbana been inay sheegaan maalina ay yiraahdaan nin ma daljirka daasoo inta tagaa hadlay maalinta dabana bannaqa waxay sheegi doonaan haddana waxay rabaan inay sheegaan waana si darro weyn oo na haysato dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka inay fahmaan laba arrimood qodob waaye meel qof bannaanbaxayo tabeelo wato codkiisa inuu cabiro rabo dastuurkan uu ogol yahay ninka ay dhibayseen oo adkaysan karina diidaayo ee jidadka xiraa militariga ciidamada iyo wixii booliisku wixii dhan banaanka u soo dhiganayo yaa biri dadka Soomaaliyeed inta soo dhaqaaqaanay ayagoo xor inta isku yimaadeen codkooda si xor ay meel ugu ridayaan macnaha ay labadaas arrimooda raba dadka Soomaaliyeed inay isbarbar dhigaan waa qodobka kale ciidamada maanta wadooyinka Muqdisho taagan iyo qalabka ay haystaan ee ay wadooyinka ku xireen ay ku taagan yihiin u haystaan hal la fahmo gabar iyo wiil Soomaaliyeed oo banaanbaxay loo soo dhigay inay u haystaan qatarta shabaab dalkan uu ku hayna meeshii taagantaa ogtiin shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan galgaduud gado jubbooyinka meel aanu maanta shabaabkii tahdiid aanu ku hayn oo aanu saas u sii socon malaha jowhara tahdiid ku jirto dhuusamareebaa ku jirto intii ka sokayso dhammaa ku jirta maxaan ku yidhaha jubbooyinka iyo meel walbaa ku jira gadaa ku jirta oo ciidamo fara badan jowhar aan laga qabanay ciidankii loogu talagalay beebayaashii iyo qalabkii loogu talagalay wadooyinka Muqdisho waa kuwa dhex taagan madaxweynihii hore ee weli ka raaraca maxaan ku yiraahdaa xukunka iyo talada qarka uga dhaganay deyla meesha maanta maray waa intaas dadka Soomaaliyeed inay fahmaan rabnaa annagu marka sida gudoomiyaha u sheegay banaanbixi berri dhici lahaa waa baajinay dibaan u dhignay maalin kama tanasulin mana ka tanasulin waa la qabanaa banaanbixi maalinta la qabanayo ku haboon tahay waa soo sheegaynaa amnigana annaga suganayno ilaan wax kale noo dhiman ma laha hadaan dhaana amnigiina waa kana suga aan jidkii nabad ku soo marno taas ay ka dhalatay hadda inaan banaanbixin dastuurka aan u leeyahay inaan ka tanasulno ma laakiin amnigeena marka sida aan u suga karnay cid aan kaashan karnay inay nala sugto amni inay nagala shaqeyso ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo saraakiisha ciidamada qalabka sida waxaan rabaa inaan u sheego war qof uma shaqaysiin qof idan ma qoran dawladda Soomaaliya u shaqaysiin
dastuurkaa idin damaanad qaaday shaqada aad haysiin iyo waajibaadkiina iyo awoodihiina iyo xuduudihiina ay ku xadidan yihiin sarkaalkii maanta meeshaas u taagan gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed oo nabad oo walaashiis ah inuu hor istaago oo xabad ku rido dib u fikiraan leenahay gadaal u fiirso dib u fikir waa khalad laguguma amri karo khalad sharci darro laguguma amri karo dastuurka inaad ku cayaartid oo ku dheedheeshid laguguma amri karo gacan ku dhiigle inaad noqotidna laguguma amri karo gacan ku dhiigle inaad noqotid laguguma amri karo saraakiisha ciidamada hogaaminaysa waxaan leenahay yaraaw weynaaw sarkaal hoose noqo sarkaal xigeen noqo askari qoristo jidka taagan noqo waxaad samaynaysa ka fiirso hebelaa iilahaay hadhow iyo hebelaa ay ahayd kuma anfacayso mustaqbalaad leedahay weliga aad joogi doontaa dalkan iyo dowladnimadiisa u joogtaa taariikhdana meel xun ha ka gelin rikoorkaaga professionka ee xirfadeed ee ciidanne waxun ha gelinin dad bannaan baxayou xabadeeyey shalay weligaa kaa harimayso ogow haddaad 100 sano cimrigaagu alla gaarsiiye xataa wixii sharciga ilaali dastuurka ilaali qawaaniinta dhan dalkan ilaali deganaanshaha iyo amniga muwaadinka cashuurtiisa aad ku nooshahay ilaali yaanan khalad ugu adeegsanin fariintaas kaba dambaystaana ciidanka iyo saraakiishoodan u dirayna dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho jooga gaar ahaan iyo kuwa meel walba jooga ee taageerada iyo maxaan ku raad ku kalsoonida dastuurka iyo xorriyadooda muujiyay waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa dadaasheen dadaalka wili waa socdaa xuquuqda dastuuriga ah lagama tanaasulayo waa loo taagan yahay maanta berri madaxweynihii hore xilkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ma hor istaagi karo intuu xilkiisu jirayna dastuurku tamashu ku jiray hadda uu ka degayna waxaad barata waa balaayada la yiri wili waa ku sii raaracwaan ku sii dhagan yahay dadka Soomaaliyeed qatarta dalka uu ku jiro ha fahmaano qatarta dalka uu ku jiro aan maalin walba ka gabanayn oo ka jirnaxayn oo aan gadaal uga sii durkayno ha gabadaan ha fahmaan ha nala gartaan gacmahayna iyo codkayna ku celi karnaa codkeenna ku celi karnaa xabada uma baahanin madaafiic inaan qaadano uma baahanin in la isdiro uma baahanin codkeenna ku celi doonaa maalinta dambe banaan baxa la ilaamiyo maalintaas noo balanayaan qof soo harin waxa socda waa ujeedaan waa mahadsantiin